guddigan maanta kulanka la qaatay maamulka degmada Shangaani iyo qaar ka tirsan shacabka degmada ayaa waxay kaga wada hadleen xaaladaha amni bilicda iyo horumarka degmada Shangaani. guddigan oo ka koobnaa labada gole ee dawladda oo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ujeedadooda kulanka waxa uu ahaa sidii ay xog badan uga heli lahaayeen maamulka iyo shacabka degmada Shangaani si la isaga kaashado ka shaqeynta amniga guud ee degmada iyo kan gobolka. waxaana intii uu socday kulanka ay guddiga warbixino kaga dhageysteen maamulka iyo dadkii kulanka ka soo qayb galay. kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha degmada Shangaani ee maamulka gobolka Banaadir. waxa uuna sheegay in diyaar ay u yihiin la shaqeynta guddigan ka kooban labada gole ee dawladda isla markaana ay soo dhaweynayaan. maanta halkan waan isugu nimid sidoo noo amray ra'iisul wasaaraha in aan mataqaanaa degmooyinka oo dhan in ay mataqaanaa loo soo magacaabo wasiiro iyo xildhibaano iyo degmada konsolka oo dhan in aan mataqaanaa nabadgelyadii oo maanta shirka uu noo furay wasiirka. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan mataqaanaa Shangaani horta ay tahay meel nabad, ummad oo nabadda jecel, ummad oo horumarka jecel, يعني oo dad isku xiran oo in mataqaana ay diyaar u yihiin inay amaamirta dawladda ay qaataan. waxaan mataqaana maanta ay nagala soo qayb galeen wasiirada iyo xildhibaanada aad iyo aad yaan mataqaana farxad noo gelinaysaa ay dhiirigelin. marka wixii barnaamijkan maanta noo furmay hadduu ilaahay raana jadwal ayaan samaysan doonaa. wasiirka hadda markuu baxay waa wada hadalnay, jadwalkaas ayaan mataqaana ku shaqayn doonaa ilaa mataqaana wixii oo carqalada ah ama wax kasta oo ahaatay inaan mataqaanaa aan diyaar aan u nahay haddaan degmada Shangaani aan nahay oo lagu yaqaano Shangaani in la yiraahdo nabadda. taasna ilaahan ku maadinaynaa. marka waxaan leeyahay wasiirada iyo xildhibaanada ku soo dhawaada waana mahadsantihiin. wasiirka tamarta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya Mudane Jaamac Axmed Maxamed Jaamac Oday ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay kaga wada hadleen kulankii ay la qaateen maamulka saraakiisha amniga iyo qaybaha bulshada degmada Shangaani. maanta halka kan waxa isugu yimi guddigii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed oo shalay lagu dhawaaqay tiradiisuna ay ka koobnayd 17 qof oo ka kooban wasiir ku-xigeen xildhibaano gudoomiyaha degmada taliyaasha saldhigga booliiska iyo nabad sugidda qayb ka tirsan ururada haweenka dhalinyarada ganacsatada odayaal dhaqameedka saaka ayuu shirkoodii wuxuu ka furmay xarunta degmada Shangaani. wax badan baan runtii laga wada hadlay oo maaragtay horumarkii loo baahnaa taabanaya. sad la socotaan mandate-ka guddiga la soo siiyay ama shaqada loo soo diray waa qaybo badan. waxaa ka mid ah dhanka amniga inay wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan ama degmada ay ka howlgalaan, dhanka iskaa wax u qabso iyo horumarka inay ka shaqeeyaan, nadaafadda iyo bilicda iyo caafimaadka inay ka shaqeeyaan, la dagaalanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyo maaragtay qaybsanaanta inay iyadana ka shaqeeyaan. qaybo fara badan oo kalena adigu waa ku darnayo horumarka taabanaya iyo isku mid ahaanshaha bulshada. marka waxaan leenahay shirki waa si fiican buu hadda noogu gabagabay qaybtiisa hore. waa la isbartay, waa la howlgalay, waa la qaybsaday hawshii. waxaan rajaynaynaa wax hadda ka dambeeyana insha allahu tacaala inay halkaa kasii socoto. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa dhawaan guddiyo ka kooban wasiiro, wasiir xigeenno iyo xildhibaano u kala magacaabay degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo u korgali doona xaaladaha amniga iyo tan horumarineed ee ka jira degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana guddigadaasi ay ka kooban yihiin 17 xubnood. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.